بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. الحمد لله ولا ليال. وحن كهردنا مانتا آياته إلهي سبحانه وتعالى إبليس كورمي آياتها حكمت بدن با كجرتا laga yaaba hadalkan oo kale maanta ka hor inaynu maqlin, laakiin waxaan leeyahay walaalayaal dhageysta oo fahma qur'aanka xikmado badan baa ku jirta, qur'aanka dibadeeni iyo dibadii ummadda ku jirta. marka waxaan iga codsanayaa walaalayaal, xadiiska markaad dhageysanaysaan qayb intaad dhageysataan qayb ha ka boodina, inama ku yara sabro dhageysta. waa wax nii taray weeyaan, if iyo aakhiroba waxaa wax nii taraya waa inta yaraad dhegeysanaysiin qaala allah iyo qaala rasuulullah calayhi salaatu wasalaam. marka walaalayaal xadiiska dhammaysta oo dhegeysta, maya dhaho haddaad mashquuliin tihiin waxaad dhegaysatiin markaad shaqladiina ka yaraad fadhiisataan ood waqti haysataan xadiiska zaani u dhegeysta, dhammaysta xadiiska. taa kadib halkan waxaan uga jeedinayaa labada culamaa'i rabbaaniyiinta uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddeeni islaamka khaasatan ummaddeeni soomaaliyeed uu ku manaystay, alcaalim alcallaama asheekh ummal iyo asheekh mustafa xaaji ismaaciil. labada culamaa walaalayaal ee rabbaaniyiinta uu ilaahay subxaanahu wa tacaala noogu manaystay, ilaahay baan mahadda ugu celinaa. ta labaad waxaan doonaya inaan halkan ugu diro fariin annii uxibuhumu fillaah, anigu inaan ilaahay dartii iyo ilaahay diintiisa aan ku jeclahay labada culamaa. marka walaalayaal iga gaarsiiya ilaahay dartii iyo ilaahay diintiisa aan ku jeclahay. asheekh ummal ilaahay cumrigiisa iyo cilmigiisa ha noo barakeeye. sheekhaasi cilmigiisa iyo carabkiisa iyuu ilaahay ummad ku toosiyey, ummadduu ku toosiyeyna waan ka mid ahay. marka ilaahay baa mahadda ugu celinayaa. الشيخ مصطفى حاجي إسماعيلنا إساقا قدي سبا وأمة قائمة وأمة توسن ويان إساقا كليجي أمة بولا دقما يان ليهانو ولا أزكي على الله أحدا، ولكن ولا الله يجيو إيقا قارسية فرينتا أني أحبهم في الله، أحب الصالحين ولست منهم، ولعلي أنال بهم الشفاعة، وأكره من تجارته معاصي ولو كنا سويا في البضاعة. تاكدي ولا ليال. وحن دوني إنان كهل دو مسألة مهمة ومسألة الشيقسة أما إيدتك سويدينيان caalimku qofkii cilmiga leh markuu ka hadlayo qof dambiilaa uu dadka u sheegayo uu dadka ka digayo, dadka qaarkood si xun bay u qaataan, si xun bay u fahmaan. waxay moodaan dadka inaa laga aamusayay moodaan, ama dadku waxay doonaan ha sameeyaan inaana lala hadin iyay dadka qaarkood moodaan. mas'aladda ayaan maanta saxnaa, dadkii laga hadli karaa dadkiinan laga hadli karin ayaan maanta sheeganaa walaalayaal. marka annagoo hadalkan igu dheereen waxaan bilaabanaa horta inaan isku dabirno dhowr aayadood. waa aayaduhu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka warramayo ibliis. marka aayadaha waxaan u qaatay sidaan tusaale inaygu siiyo qofka laga hadli karo ee dambiilaha ee ummadda la odhan karo iska ilaaliya iyo qofkaanan laga hadli karin. marka walaalayaal horta waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad kastuu magaca ibliis ku xusay waxaad aragtaa waa aayadaha sheegaya inuu ibliis sujuuddii diiday, uu kibray, uu isla weynaaday, uuna ilaahay caasiyey. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أبونا آدم عليه السلام إلهي مركو أبوري ملائكتي سكو أمري إني أسجودو، ملائكتنا وي سجودي وحا ديدي مركا سجود دبير إلهي إبليس بادي مركا أفر سلام مقع إبليس ولا لهجي. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس باديدي إنو كمد نقضو داتكي سجودي، ملائكتي سجودي إنو لا سجودو إبليس باديدي بير إلهي. إبليس بو بحي. طيب إلهي مركز ويدي وحيري قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك محاد السجود ويدي أنا كو أمر يمركو إلهي كيري سبحانه وتعالى وحيري نكي إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا واحد هاي نكا كخير بدن إساقان هاي آدم وان كخير بدن هاي أنا الدب ديقا أبورتي إساقان الضوبات كأبورتي يوئري إبليس مركزي واجبري. طيب ولا ليا سورة الأعراف آيات كوي تبنات إلى آيات لبيو تبنات انت سي شيغسا. هدبا waxaan u fiirsanana aayada 9 ilaahay muxuu aadan kiiri ya aadamu iskun anta wa zawjuka aljanna adiyo islaantaadi adiyo zawjadaadi aadanow gala jannada fakula min haythu shi'tuma wala taqraba hadhihi ash-shajara. sida doontiin wacuna jannada oo daaqa geedka kaliyatoon haw dhawaanina iyo ilaahay kiiri fatakuna min adh-dhalimin. waxaad markaas noqonasaan dadka nafahooga dulmay iyo noqonasaane geedka haw dhawaanina. طيب آيات دي لباتنات في سورة العرف تيوم إلهي محيري مركز فوسوس لهما الشيطان بير إلهي. هذا ما أفير صدحك إلهي مؤر فوسوس لهما إبليس بأو وسواسي لبدو دا مؤر وحيري وحا وسواسي الشيطان إلهي الشيطان بوبه
halka uu sujuudda uu ku diiday ibliis waxaa la yidhi ibliis baa sujuuddii diiday eeg hadda halkan markuu ibliis u waswaasiyey aadan iyo xaawa siday geedka u cunaan ilaahay muxuu yidhi aayadda suurati alacraaf aayadda 20aad wuxuu yidhi fawaswasa lahuma ashaytaan liyubdiya lahumaa maa wuriya canhumaa min saw'aatihima وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين إيه هذا فوسوس لهما الشيطان بإله محو إلهي ورواي فوسوس لهما إبليس مقعي إبليس محو رواي إلهي محو يري فوسوس لهما الشيطان إلهي الشيطان بوبحي إيه هذا آية ذهن وحي نبرين ولا لا شيطان كواكن حمانتي سفافيني waa kan dadkii galaafanaya waa kan dadkii dariiqa xun ama jidka ilaahay ku goonaya kaasaa shaydaana haddaba ibliis markuu ilaahay caasiyey waxaa loo bixiyey ibliis laakiin markuu xumaantiisii ula tagay aadan iyo xaawa uu galaaftay uu waswaasiyey waxaa la yidhi fawaswasa lahumaa ashaytaan magacii shaydaan baa loo bixiyey haddaba ibliiskii muxuu isku bedilay shaydaan buu isku bedelay ayib آيات هذا هنيجنو سورة الإسراء سيدا سلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ويسجدوا إلا إبليس بير إلهي مؤر إلا الشيطان ولي شيطان من نقول إبليس بير إلهي إلا إبليس قال وحير إبليس أسجد لمن خلقت طينا موحن أسجودا وفضلوبك أبو تيان سجودا وكبري تصبو إلهي أدي لأمر كيس إلهي بو عاسي طيب إبليس بليل يعني بلس عن رحمة الله وقف هدد لقى فوقين حريست إلهي تصبو إلهي ودي أمر كيس أونا كبري أبا واستكبر سيدا سورة البقرة وإلهي أورونيو وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين إيجا أبا أودي أمر كي إلهي بوتوس ودي واستكبر أونا كبري إلهي وحب بحي هدب إبليس سورة الإسراء واسدا سلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس بديد مؤر إلهي إلا الشيطان آيادو كستو إلهي ومقعي إبليس كحسي وحو شيغ يا إبليس إنو يهي نكي سجود ديدي إيه كبري إيه قالوبي طيب ودنبي إساقي ربي جيسي قدحي لكن مركو إلهي كور رمي إنو إبليس كاسي قلافتي آدن يحاوى وجنة دي كساري إلهي محيري إبليس با جنة دي كساري مؤر إلهي شيطان كا جنة دي كساري شيطان كا وسواسيي بير إيه هذا حمانتي سمركو حمانتا مركو دادكي أولاتغي ودادكي قلافتي وحلو بحي الشيطان إبليس لمور طيب محي آية دهنا بريان وحينا بريان شيطانكو وكان دادكي كله إلى الضباشة دنبيغا إقولا الضباشة وكان دادكي ugu yeeraya xumaanta waa shaytaan marka ma jirta quraanka inta leeg quraanku waa 6236 aayad waa 6236 aayad Soomaa ma jirta aayad le ibliis haraacina ibliis iska ilaaliya talaabadiisa haraacina aayad le ma jirto aayad kasto ilaahay uu dadka ka digayo eeg hada wuxuu u keenaa magaca shaytaan ashaytaan ma jirto aayad إبليس مجلس شيغسة أو أمدي كديجس حمانتيس ما جرت إنما الشيطان بالو بحي وايو إبليس وحوها مركو حمانتيس يو كبر كيسة قنتيسة قلبي كيسة وكويستو إلهي توس أمر كيسة قديني لكن شيطان وحلو بحي مركو هديت بلا بينو داتكي ووسواسيو وداتك دريقة كوغويو وداتك دريقة حنوغيرو وداتك دريقة جهنم أوغيرو إيو إلهي روا الشيطان كإسك إلهي إيغان سيدا آيات سورة الفاطر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا بير إلهي شيطانك وعدو إيونيه عدو كدك تبير إلهي مركم مؤمنين توقوا رمي إيه هذا مؤرن إن إبليس عدو لكم هذا وايساقيون شيطانك وإبليس كيون لكن حلقا الشيطان وحلوقوا بحيي لأنه وحو بلابي أكتدي شقديسو بلابي markii hore dambigiisa isaga iyo rabbigii u dhaxeeyay markuu kibray uu gaaloobay uu amarkii ilaahay toos u diiday ilaahay wuxuu yiri ibliis baa sujuud diiday ma oran shaydaan baa diiday laakiin markuu shaqadiisa bilaabay xumaantiisa inuu soo saaro uu dadkii ula tago uu dadka galaafto ilaahay muxuu bixiyay shaydaan buu bixiyay fawaswasa lahum ash-shaytaan ayat kalena fawaswasa ilayhi ash-shaytaan ma oran ibliis tay shaydaanku hadaba waa kan xumaantiisa dadka ugu yeeray waa kan xumaanta dadka ugu yeeraya waa kan xumaanta dadka jeclaysiinaya waa kan dariiqa ilaahi dadka ka saaraya waa shaytaan inna ash-shaytaana lakum aduwwun fattakhizuuhu aduwwa bil ilaahi
markaasuu yidhi innamaa yadcuu xisbahu xisbigiisa iyo wixii isaga raacay wuxuu ugu yeeraa liyakunuu min asxaabi asaciir siday u noqdaan dadka saciira dadku naarta saciira ugu yeeraa dadkii isaga dhegaystay ee xisbigii shaydaanka noqday wuxuu ugu yeeraa janno uguma yeeree innamaa dabkii ilahay o ciqaabti ilaahay buu dadka ugu yeeraa haddaba waa ayo shaydaanku waa kan dadka ugu yeeraya dabka ilaahay shaydaan waxaa loogu bixiyey siduu ilaahay noogu caddeeyo mar hadduu dadkii galaaftay wuxuu noqday shaydaan laakiin dembigiisii isagiiyo rabbigii u dhexeeyey sujuuddii waa diiday waa kibray waa gaaloobay isagee u taallaa ibliis baa loo bixiyey qur-aanka u fiirso ma jirto aayad leh malaa'igtu way wada sujuudday shaydaanka waxaanan ahayn aayad leh ma jirto ibliis buu yidhi ilahay waxaanan ahayn ayib huwa balisa can raxmat illah haadaa bayna wa bayna rabbih walaakin asbaxa shayطaanan xiinamaa qaama bifitnati innaas markuu ku kacay inuu dadka fidneeyo uu dadka ugu yeero dabka ilaahay uu aadan iyo xaawo u waswaasiyo uu jannada ka saaro ilaahay wuxuu u bixiyey shayطaan ayib haddaba qofku hadduu dembiile yahay isagiyo rabbigiisa u dhexaysa cid ka hadli karta dembigiisa oo bulshadaa ku sheegi karta dembigiisa ma jirto walaa caalim walaa jaahil culammadu markay haldaan cilmi bay ku haldaan waa culamo garanaya hadalka siday qofkay la haldayaan qofkay ka haldayaan iyo qofkaynan ka hadal culammadu way garanayaan waa aqoon waxay ku haldaan juhul maaha qofku ibliis waa noqon kara ilaahay uu diidi karaa amarkiisa waa kibri kara meedhaho uu gaaloobi karaa isagay u taallaa ilaahay wuxuu yidhi faman shaaa falyu'min waman shaaa falyakfur adduunyada intaa lagu nool yahay qofku ikhtiyaar buu leeyahay hadduu doono ha rumeeyo ilaahay hadduu doonona ha gaaloobo isagay u taalla cid faraanfarayn kartaa ma jirto cid ka hadli kartaa ma jirto dembiile isagiyo xaalkiisa isagiyo rabbigiisa udhexaysa laakiin hadduu ku kacay dembigaas inuu dadka ugu yeero waa inaa dadka laga digo oo la idhaaho hebel waa shaydaan iska ilaaliya yaa ummat alislaam inaa la idhaaho waa xaq aayadaha caddeynaya inta aalaafe aayadoodu ilaahay ummaddaa ka digayo shaydaanka waa insa way badan yihin ma jirto aayad le ibliis iska ilaaliya laakiin wuxuu ilaahay idhaahaa had iyo jeer shaydaanka iska ilaaliya shaydaanku waa cadowgiina shaydaanka ha raacina waayo lianna ummaddii waxaa galaafanaya oo xumaantii faafinaya oo dadka dariiqa ilaahay ku goonaya waxaa la idhaahaa shaytaan waa ka ilaahay muxuu yidhi fii suurati alacraaf aayadda 7 muxuu yidhi ilaahay yaa bani aadam dhegayso bani aadanow annaguna sheega ilaahay laa yaftinannakum ashaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna shaydaanku inuuni fidneen labadiina aabbo siduu jannada uga saaro u fidneeyey inuuni fidneen biri ilaahay ayuu ku dhawaaqaya bani aadamkao dhan buu ku dhawaaqaya eeg hadda yaa bani aadam laa yaftinannakum ashaytaanu kamaa akhraja abawaykum min aljanna muxuu ilaahay u ohan waaye laa yaftinannakum ibliis may ibliis wuxuu ahaa ibliis markuu isagiyo rabbigiisii amarkii diiday uu gaaloobay uu kibray xumaantii uu guntiisa ku haystay iyuu ibliis ah halkan markuu xumaantii ku dhaqaaqay uu dadkii galaaftay ilaahay wuxuu bixiyey shaydaan halkan markaas ilaahay muxuu yidhi ummadduu ka digaya ilaahay dadow laa yaftinannakum ashaytaan shaydaanku inuuni fidneen buu yidhi ilaahay ma oran ibliis dayib qofku ibliis waa noqon kara wuu kibri karaa isagee u taal cid dembigiisii ka hadli karta cid xumaantiisii meel ku sheegi kartaa ma jirto waa mamnuuc laakiin hadduu xumaantii bulshadii la yimid hadduu xumaanta faafiyo ya uu fasaad buuga ka soo baxo uu dadkii idhaaho sidayda isku qaawiya may dhaho sidayda dembigayga igula dabbaasha hadduu idhaaho wuxuu noqday shaytaan ummadda markaasi waa looga digayaa waana la sheegayaa inuu shaydaan yahay inaa la iska ilaaliyo waa ka yaa bani aadam laa yaftinannakum ashaytaan kamaa akhraja abawaykum min aljanna siduu labadiina aabbo jannada uga saaray inuu isaguna inigani fidneen inuuni qaawin ayib haddaba waxa lagu murmayaa iska yar qofku dembiile hadduu yahay cid dembigiisi ka hadli kartaa ma jirto walaa fi lmasjid walaa bulshada dhexdeeda walaa fi ayi makaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi man tatabaca cawrata akhiihi muxuu yidhi nabigu ninka cawradaha walaalihii raaca ilaahay cawradiisu fadeexadeeyaa dembiile isagaiyo rabbigiisay u dhexaysaa laakiin dembigii maa ku kacay inuu faafiyo uu dadkii ugu yeero yah uu idhaaho sidayda u xumaada uu idhaaho jidka ilaahay ka baxa uu idhaaho jahannamo ku soo dhowaada waa inaa la idhaaho qofkaasi magaciisa waa inaa la sheego xaalkiisa waa inaa laga hadlo dembigiisa waa inaa laga hadlo ummaddana waa inaa laga digo qur-aanka sheegay marka magaca ibliis iyo magaca shaydaan waxaa u dhexeeya waa labadaa macno
aayad kastuu ilaahay ka hadlayo ibliis wuxuu sheegayaa aayad kasta uu ilaahay ku xusayo magaca ibliis uu ku sheegayo uu ugu yeerayo ibliis waxa uu sheegayaa waa aayadaha uu sujuudda uu ku diiday amarkii buu diiday sujuuddii baa diiday waa ayo waa ibliis buu yidhi ilaahay waa shaytaan muwad laakiin aayadaha kale oo dhan markuu bilaabay inuu dadkii fidneeyo inuu labadii aabbo uu jannadii ka saaro ilaahay wuxuu yidhi shaytaan fawaswasa lahuma shaytaan eeg hadda ilaahay markaasi shayaadiintuu naga digay uu yidhi shayaadiinta ha raacina ma jirto aayad la ibliis ha raacina qofku markaasi dambiile hadduu yahay isagay u taallaa cid dembigiisii ka hadli kartaa ma jirto hadduu rabbigiisa u toobad keenay fa bihaa nicma meedhaho hadduu biirsadayna isagay u taalla laakiin cid ka warrami kartaa dembigiisa ma jirto hadduuse mas-uul yahay ama social mediaha uu ka soo baxo siduu xumaantiisa u faafiyo siduu dadka ugu yeero xumaantu ilaahay iyo rasuulkiisu ummadda uga digeen qofkaasi wuxuu noqday shaydaan shaydaankana ummadda waa inaa la iraaho iska ilaaliya kuu doona ha noqdo war dembigaaga adeer meel la fadhiiso dembigaagii meel la fadhiiso is astur intaad kelisid is astur ummaddase ha ugu yeerin dembigaaga haddaad ugu yeedhid waxaad noqotay shaydaan magaca shaydaan ayaa markaa ku raacay kol haddaad shaydaan noqotayna culamadu xaq bay u leeyihiin inay markaasi kaa haldaan shayaadiintu ha moodina un shaydaanku inuu yahay ibliis iyo jinkan shaytaan alinsi baa jira iyo shaytaan aljin shaytaan alinsi yaa ka daran shaytaan aljinka shaytaan aljin ilaahay ma xustay walla hariba waa kaa baxsan shaytaan alins weligaaba acuudu billaahi min ashaytaan arajiim leh uu taagan yahay uu kula fadhiya markaa shayaadiinta insiga waa laga cararaa shayaadiinta jinkase haddaad ilaahay xustid way kaa cararayaan shayaadiinta jinkii laakiin shayaadiinta insiga kuwaasaa ugu daran kuwaasi adigu waa inaad ka carartid ilan weligaaba haddaad tirahdid acuudu billaahi min ashaytaan arajiim waa taagan yahay waa taagan yahay waa bani aadan sidaa waa insi kaasaa ugu daran ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sheegay labadan shaydaan shaytaan alinsigi iyo shaytaan aljinkii uu sheegay ilaahay muxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqawli guruuraa buu yidhi ilahay way isku waxyoowaan shaydaanka insiga iyo shaydaanka jinka marka aayaddan uu ilaahay ku sheegayo shayaadiintu inay laba yihiin eeg suurat alancaam waa aayadda 112 markuu shayaadiinta sheegay ilaahay wuxuu ku bilaabay shaytaan alins eeg wuxuu yidhi shayaaiina alinsi waaljinni muxuu ugu bilaabay shaydaanka insiga liannu isagaa ka khatarsan kan jinka allahu akbar haddaad tirahda waa baxsanay acuudu billaahi min ashaytaani arajiim waa baxsanay kan weligaaba ku dul eedaan weligaaba acuudu billah dhe waa tagay kaasaa ugu daran marka ilaahay wuxuu yidhi shayaadiinta insiga iyo shayaadiinta jinku way isku waxyoowaan way isku sheegsheegaan waa dad iscaabuda waa dad u tashaday ummadda islaamka inay baabiyaan halagaan ee dariiqa xun ay dadka ugu yeeraan suurat alancaam aayadda 121 ilaahay muxuu yidhi wa ina ashayaaiina layuuxuuna ilaa awliyaa'ihim shayaadiintu waxay u waxyoodaan awliyadooda dadkii iyaga raacay ka mid noqda markaa shaydaanku waa ayo waa kan dadka xumaanta ugu yeeraya eeg hadda markaas kaas inaa ummadda laga digo oo la idhaaho iska ilaaliya waa xaq qur'aankaa sheegay imsa aayadood buu ilaahay nooga digay shaydaankaas inaan raacno shaydaanka inuu cadowgeena yahay markaa shayaadiinta dadka ugu yeeraya camalkoogan xun waa inaa ummadda looga digo oo la idhaaho iska ilaaliya kuwaa way dhaqan xun yihiin way camal xun yihiin waa shayaadiin iska ilaali inaa la idhaaho waana xaq weeye qofku xumaan hadduu ku jiro xumaantiisa lagama hadli karo dembigiisa isagaiyo rabbigiisa cid ka hadli kartaa ma jirto waa mamnuuc diintu way mamnuucday walaa caalim walaa jaahil laakiin qofku hadduu shaydaan noqdo uu dadkii ugu yeero xumaantiisa ummadda waa inaa looga digo kuu doona ha noqdo minister ha noqdo mas-uul ha noqdo cifriit wuxuu doona ha noqdo waa inaa la idhaaho iska ilaaliya yaa ummat alislaam waa inaa la idhaaho siduu ilaahay uga digay ummadda mu'miniinta ummadda islaamka siduu uga digay shayaadiintan camalkooga iyo xumaantooda iyo dhawaaqooga iyo socodkooga iyo tallaabadooda siduu ilaahay uga digay waa inaa looga digo intaasaan dooni inaan cadday laakiin kana caasiga ee dambiilaha ee dembigiisa kala xishoonaya ummaddu inay aragto xishoodkaa uu ku xishoonayoba waxa uu yahay mu'min alxayaa'u min aliimaan qofku hadduu dembigiisa ama balwadiisa dadkaa uu kala xishoonayo meel isku qarinayo qofkaasi waa qof muuminaba iimaan baa ku jira alxayaa'u min aliimaan lagama hadli karo goormaa laga hadli karaa goortay haddaba bilaabaan inay
shayaadiin noqdaan ee dadka ugu yeeraa xumaantaas marka culamadu waa inay ummadda ka digto sharka dadkaas oo iska ilaaliya la iraaho وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته